بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مeel kasta aad joogtaan ba Allah awood la dhamaanteen waxaynu ka wada baryaynaa inuu naga wada badbaadiyo cudurka coronavirus-ka faarisidiisa kala duwan meel kasta oo dunida aan ka joognaba waa maalinimo jimco ah iyadoo ay tahay bisha February 26 2021 cudurka coronavirus waa uu jiraa dhinaca kale dadaaladii talaalada ayaa jira iyo dadka la kala xanibay taasoo loo arkayo qaaradaha intooda badan in culaysku uu ka sii degayo marka ka dambaysa UK marka aynu ku bilowno waxa uu kamid yahay wadamada muujadii koobaad iyo tii labaad si aad ay u aafaysay iyo waliba UK oo fayrasyada kala duwan ee Wuhan ka Brazil ka UK iyo South Africa dhamaanba dadka qaar laga helay laakiin dadaalo xoog leh oo jira awgood maalmihii ugu dambeeyay waxa la arkayay tirada dadka uu ku dhacaya inay aad u yareed dadka dhimanayaan inay aad u yareeyeen UK taasoo markaas talaabooyin fara badan oo xanibaada lagu qafiifinayo la qaaday isniintii ayay ahayd markii ra'iisul wasaare Boris Johnson uu ka dhawaajiyay barnaamijka afarta qaybooda ee la doonayo in lagu qafiifiyo laguna yareeyo guud ahaanba xanibaadii UK iyo England taasoo laga bilaabayo 8 bisha Maarso ee soo socota iskuulada in dib loo furo kadibna qaabkaas wax walba loo hagaajiyo iyadoo mar walbana la feejigan yahay oo aan loo qaadan cudurkii inuu dhamaaday dhinaca kale maamulayaasha caafimaadka iyo saynisyahannada dalka UK ayaa waxa ay sheegeen in tiradu ay hoos u soo yaraanaysay xagga dadka uu ku dhacayay iyo dadka cudurka u dhimanaya taasina ay keentay inay tahay tallaabo lagu farxo la soo dhaweeyo laakiin mar walbana la feejignaado wararkii ugu dambeeyay UK waxa ay sheegeen heerka digniinta iyo feejignaanta oo ahayd 5 in laga soo dejiyay oo la gaarsiiyay 4 taasoo ka dhigan culayskii xoogga lahaa ee jiray ee la iclaamiyay bishii January horraanteedii in markaan uu yaraaday oo heerka afraad la joogo taasoo u muuqata in la sii aadi doono heerarka xiga ee saddexaad labaad iyo heerka koobaad UK maamulayaashooda caafimaadka iyo saynisyahanadu waxay ka dhawaajiyeen in isbitaalada dadkii imanayay ee dhinaca cudurka coronavirus ay soo yaraadeen taas waxaa marqaati ka kacaya marka la fiiriyo maalmihii ugu dambeeyay tirada soo ridashada oo dadka laga arkayo cudurku ay ka yarayd 10,000 iyadoo horey bishii December ay u gaartay ilaa iyo 68,000 taasoo ahayd tiro aad u badan markaynu soo qaadano maalmihii talaadadii arbacadii iyo khamiistii xagga talaadadii 8,000 iyo wax la jira ayaa laga arkay laakiin labadii maalmood oo dambe 9,900 iyo 9,800 ayaa laga arkay taasoo ka dhigan 10,000 inaanay gaarin dadka cudurka laga arkay maalintii talaadadii dadka cudurka u dhintay tirada la sheegay waa 548 maalintii arbacadii ay xigtana 442 maalintii shalay oo khamiisana 232 taas oo tirada guud ee UK cudurka uga dhimatay maalinkuu bilowday ilaa maalinka maanta ka dhigaysa 121,970 UK marka la fiiriyo guud ahaanba dadaalo badan ayaa ka jiray yididiilo xoog leh ayaa jira walibana talaaladii meel fiican ayay marayeen oo 20 milyan ayay madaxa la galeen dadka iyagu qaatay dooska koobaad iyadoo waliba tiro kale oo iyaduna milyan ku dhow ay qaateen dooska labaad taas oo loo arkay UK inay tahay dalka saddexaad ee ugu badan dadka la talaalay marka laga reebo Israa'iil oo kaalinta koobaad iyo istaga Imaaraadka Carabta oo ah markaas kaalinta labaad marka la fiiriyo dalka Mareykanka shirkadda lagu magacaabo Johnson & Johnson oo ah shirkadaha dhinaca talaalka ayaa indhawaalaba waxay ku howlaneed soo saaridda talaalkeeda iyo eegista sidoo waxtar u leeyahay marka laga hadlayo cudurka coronavirus-ka ka hortagiisa iyo iska fogeyntiisa wararkii ugu dambeeyay maamulayaasha Johnson & Johnson waxay shaaca ka qaadeen in talaalkooda la arkay oo uu yahay mid wax taraya iyadoo waliba la sheegay halka cirbadi inay tahay mid aad wax u taraysa marka la fiiriyo 66% in ay difaacooda u fiicnaanayo marka la fiiriyo Johnson & Johnson laakiin marka labada talaal la qaato ayaa lagu sheegay in 85% waxtarka Johnson & Johnson uu yahay waxa la filayaa saacadaha soo socda in laga ogolaado guud ahaanba wadanka Mareykanka kadibna markaas ay noqoto shirkadii saddexaad ee dhinaca talaalka ee Mareykanka oo Pfizer iyo BioNTech ay markaa ka horeeyeen shirkadda labaadna ay ahayd shirkadda lagu magacaabo Moderna Johnson & Johnson ay noqon doonto shirkadda saddexaad marka la fiiriyo wadamo dhowra ayaa markiiba dalbaday iyagu Johnson & Johnson talaalkeeda waxaana kamid ah dalka Mareykanka oo shirkaddu ay ku taalo kambanigeeda amaba saldhigeedu uu yahay oo Mareykanku ay markaas dalbadeen ilaa iyo 100 milyan oo doos waxa kale oo dalbaday UK 30 milyan oo doos waxa kale oo dalbatay dalka Canada 38 milyan oo doos waxa kale oo dalbaday reer Yurub 200 milyan oo doos iyo waliba mashruuca COVAX lagu magacaabo ee laanta jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa ee ah dhinaca caafimaadka WHO ay dalbatay oo ah ilaa iyo 500 milyan oo doos taasoo loogu talagalay wadamada jeebkoodu aanu buurayn in markaasi wax lagu siiyo oo laga saacido dhinaca talaalka
arrimahaasi waa arrimo dadaal xoog leh oo jiro iyadoo qaybtii ugu horreysay mashruuca isaga ee COVAX ay wadaan jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa laamaheeda WHO iyo UNICEF ay markaas shixnadii koobaad ee talaalku ay tagtay waddanka Ghana oo ku yaala galbeedka qaaradda Afrika taasoo lagu bilaabay oo ilaa iyo 200,000 oo doos ay tageen ayna filayaan kuwa kale in la helo wadamo badan oo adduunyadana markaasi la geynayo mashruucan oo ay lacagta bixinayaan wadamada jeebkooda uu buuran yahay sida waddanka Mareykanka iyo dalalka kale ee reer Yurub oo iyagu jimcihii la soo dhaafay markay muuqaalka ku shireen ogolaaday arrintaas inay ka saacidaan wadamada jeebkooda uu liito Afrikana ay ka mid tahay waddanka Senegal oo kamid ah wadamada ku yaala galbeedka qaaradda Afrika kana mid ah dalalka cudurka uu saameynta ku yeeshay ayaa waxaa laga dheehday telefishinada warbaahintana laga sii daayay madaxweynaha dalka Senegal Macky Sall oo isagu qaadanaya talaalkii koowaad ee cudurka coronavirus-ka taasoo tusaale u noqonaysa bulshada reer Senegal inay ogaadaan in madaxweynahoodii uu qaatay kadibna iyaguna ay qaataan labadii maalmood ee ugu dambeysay ayaa waxaa la qaadanaya talaalka dalka Senegal oo ilaa 4,000 oo ruux ayaa la talaalay iyadoo wararku ay sheegayaan dalka Senegal in la gaarsiiyay ilaa iyo 200,000 oo doos oo ah Sinopharm shirkadda lagu magacaabo ee dalka China talaalka ay soo saartay madaxweynaha waddanka Senegal Macky Sall ayaa waxa uu yiri anagu ma aanan sugin mashruuca jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa laanteeda WHO ee COVAX ee waxaan ku dadaalnay buu yiri inaanu sii gadano laakiin uu sheegay in barnaamijkaas loogu talagalay dadka aan lacagta haysan iyo wadamada jeebkooda aanu buurayn in markaas laga saacido waxa uu sheegay madaxweynaha waddankaasi Macky Sall in ilaa iyo 6 milyan oo doos oo kale dalka Senegal ay filayaan waqtiyada soo socda si markaas talaalku uu markaas u noqdo mid dalka Senegal guud ahaanba ka meel mara marka daba la fiiriyo adduunyada guud ahaanba dadaalo xoog leh ayaa ka jira iyo mashaariic kala duwan oo ku saabsan guud ahaanba cudurkan sidii saameyntiisa wax looga qaban lahaa wadamada reer Yurub oo maalintii Khamiistii hogaamiyayaashoodu ay muuqaalka ku shireen ayaa waxay ka shireen arrinta ku saabsan in la helo shahaadada dadka la talaalo la siinayo taas oo reer Yurub sheegeen inay habboon tahay waxaana mashruucan isaga ah aad garwadeen uga ah labada wadan ee kala ah waddanka Greega iyo waliba waddanka kale ee Austria waxay sheegeen inay laga maarmaan tahay dadku markay doosaska talaalada qaataan in la siiyo shahaado ama wax la yiraahdo vaccine passport taasoo marka ay safrayaan ay cadeyn karaan talaalka inay qaateen laakiin hogaamiyayaal kale oo reer Yurub ayaa u arka arrintaas inay tahay mid lagu degdegayo oo ay tahay in laga fiirsado qaarna waxay u arkaanba inay midab kala sooc iyo iska fogeyn noqon doonto waxaa jiri doonta mucaaradad xoog leh oo ka iman doonta qaar ka mid ah hogaamiyayaasha wadamada reer Yurub oo u arka arrinta shahaadadaas inay tahay mid ay tahay in laga fiirsado oo waqti la siiyo hogaamiyayaasha Jarmalka iyo Faransiiska ayaa waxay u arkaan inaan lagu degdegin shahaadadaas iyada ah oo ay tahay laga maarmaan in marka hore lagu dadaalo cudurkan sidii looga ciribtiri lahaa guud ahaanba qaaradda Yurub dadaalo xoog leh ay u sameyn lahaayeen guud ahaanba wadamada reer Yurub sida adduunyada inteeda kale guud ahaan adduunyadu waxay la daalaa-dhacaysay in muddaaba arrimaha ku saabsan cudurka coronavirus-ka iyo fayrasyada kala duwan sidii markaa wax looga qaban lahaa laakiin iminka waxay u muuqanaysaa talaaladu inay shaqeeyeen marka laga hadlayo meelo badan oo dunida ka mid ah iyadoo dowladda Israa'iilna ay hore shaaca uga qaaday Pfizer talaalkeedu inuu yahay mid wax taraya oo waliba coronavirus-ka ka sakow qofka marka lagu talaalo ay dhici karto qandhooyinka kale iyo waxyaabaha kale caafimaad darrada inuu ka hortagi karayo waxaa daba la eegayaa guud ahaanba adduunyadu sida ay markaasi ay wax uga qabato talaalada kala duwanna wax uga qabtaan cudurkan adduunka aafeeyay ee coronavirus-ka oo ka bilowday Wuhan ee dalka China kadibna la arkay fayrasyada kale ee dalalka Brazil iyo waliba South Africa iyo waddanka UK dhinaca talaaladu aad baa loo wada talaalada waxaana loo arkaa inay yihiin kuwa yareynaya cudurka in la isu gudbiyo oo difaaca jirka markaasi wax ka qaban karaya barnaamijkan isaga iyo fariintan waxaad heshaan maalmo ah 2 maalmood toddobaad walba waa maalinta Jimcaha ah iyo maalinta Talaadada ee soo socota haddii Allah awood leh uu ogolaado marka daba aynu fiirino fariinta waxa fududeeya shirkadda dhinaca qaadista alaabooyinka xagga UK laga qaadayo lana keenayo xagga Soomaaliya guud ahaanba la geenayo lagana keenayo waa shirkadda lagu magacaabo Parcel Host oo fadhigeedu yahay UK xafiiskeeda weynina uu ku yaalo bariga magaalada London 473 High Road Leyton halkaas oo uu diyaar ku yahay ganacsade Axmar Barqadle iyo waliba iyadoo halkaas laga heli karayo oo kale DHL-ka guud ahaanba adduunyada oo dhan la isaga daabulo alaabooyinka hadda sidii haddii lagu keenayo intaba
ganacsade axmed barqadle waxaa kaloo uu bulshada u hayaa guud ahaanba taleefanada noocyada kala duwan ee kuwii ugu dambeeyey iyo cunooyinka kala duwan waxaana lagala xiriiri karaa telefoonka eber 79 dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba dhib iyo dheef waxay la wadaagaan dadweynaha dunida waxaana laga rabaa inay islaaliyaan ay feejignaadaan baryada ay badiyaan nadaafadana ay ku dadaalaan inay dhageystaan awaamirta ka imanaysa maamulayaasha dalalka ay joogaan iyagoo aan iloobi in halku dhigi ahaa walaalle ha ii soo dhowaan yaana kuu soo dhowaan yaana isu soo dhowaan aan kala fogaano baryada eebba aan badina nadaafadana aan ku dadaalno waa maxamed axmed xaaji cagmadhiga iyo bahda telefishinka caalamiga universal ugu qaabilsan arrimaha ka wacyigelinta bulshada cudurka coronaviruska oo idin leh annagoo kariimkeenna kaashanayna kaalinteenna aan ka qaadano ka hortagga coronavirus maasha allah